markaad filimada ku arki jirtay ama video gameska sida loo kaxeeyo gawaarida iyo weliba xirfadaha kala duwan iyo xarakaadka ashqaraarka leh ee ay sameynayaan darawallada qaar mowduuca aan ka sheekaynayna ee ah darawalladii ugu yaabka badnaa kuma xiisa gelinayso laakiin barnaamijku wuxuu dhadhan yeelanayaa markii aad noqotay darawal dhaba oo hadda ka hor kaxeeyey gaari isagoona la kulmay mawaaqif iyo weliba meelo adag oo uu ku kaxeeyey gaarigaasi kadibna uu ka baxsaday haddii arrintu ay sidaa tahay oo aad darawal hore u soo ahayd ama xitaa aad wax ka garanayso ood la soo shaqaysay dad darawalla ah waxaa hubaal ah barnaamijkani inuu dhadhan kuu yeelan doono bal haddaba kaalay oo maanta ila arag darawalladii ugu cajiibsanaa ugu khibradda iyo dhugta iyo maskaxda badnaa uguna garaadka weynaa ee xagga kaxaynta gawaarida ku soo dhowow ogaalka dunida haddaad cusub tahayna nagu soo biir sidoo kalena muuqaalka ha ka hilmaamin inaad leeg saarto si ay taa noogu dhiirigeliso hore u socosho iyona dareensiinta aadna dareensiinaysaan in barnaamijyadan ay idin cajabinayaan waddada ugu horeysa waddada baska ee khatarta iyo halista huwan markaad darawal hore u soo noqotay sidoo kalena aad bas ama gaari kale aad ku socodsiisay wadda nuucaan ah oo buur hoosteeda ah sidoo kalena ah meel sare oo halis ay tahay qofkuba inuu ka soo dhaco ama gaarigu kaala soo faniino waxay noqonaysaa sheekadu mid xiise leh laakiin haddii ay ahayd mid aad ka fiirsan jirtay filimada ama aad ku arki jirtay muuqaallo qaar oo loogu talagalay waxyaabo kale sida kobcin iyo wixii la mida ama faanin ama tartan iyo wixii la halmaala taa waxay noqon doontaa midaan xaqiiqada u dhoweyn halkan waxaa laga yaabaa in gaarigaaga ay hal lug dhinac u qalloocato kadibna aad buurta kala soo dhacda gaariga sidoo kalena halista badan ee waddada noocaan oo kala huwantahay waxaa ka mid a inaadan u jeedin gaariga kaa soo horbixi doona maadaama ay waddadu tahay mid qalloocan oo la soo wareegsanayo waxayna u baahan tahay taxadar aad u fara badan iyo weliba feejignaan dheeri ah galarios waa darawal u bartay inuu bas ku kaxeeyo ama gaadiid kaleba ku kaxeeyo waddadan halista badan ee muuqaalka kaaga muuqata iyadoona sanadkiiba ay halkaa ku dhintaan 1,000 qof oo u dhinta shilal ay ku galaan waddadan halista badan ee uu gaarigu kaala fanini karo daqiiqad weliba laakiin ninkani muddo ka badan 50 sano ayuu qabanayaa hawshan aadka u halista badan aadkana u adag ee ah darawalnimada gawaarida ama baska lagu kaxaynayo waddadan qalqalloocan ee haddana ku samaysan buurta hoosteeda sidoo kalena ah mid sarraysa oo haddii gaarigu qofku kala soo dhaco laga yaabo in wax yar kadibba aan naf lagu soo gaarin haddaba halista waddadani waa mid sarraysa iyadoona laga yaabo hal qalad oo darawalkan galo inuu ku halaajiyo ama ku halaago ama gaarigu la guddoomo dadkan gaariga saaran sababtoo ah buurta uu hoos marayaba baskiisu wuxuu u jiraa wax yar inuu ku dhacana halis buu ugu jiraa sidaa daraaddeed dadku waxay doorbidayaan in gaariga loo wado hab deggan yacnii aan lagu socon xawaaro badan ku kaxaynta gawaarida ee labada lug arrintan ah in gaariga lagu kaxeeyo laba lug oo hal dhinac isku xigta ama dhinac gaariga loo socodsiiyo waa arrin caan ka ah aadna looga wada yaqaano waddanka Sacuudi Carabiya laakiin dadka aan ku dhaqnayn ama aan deganeyn Sacuudi Carabiya way adag tahay inaad ka dhadhiciso arrinta oo kale sidoo kalena ay la noqoto waaqici ama wax xaqiiqo ah la yaabka iyo weliba cajaa'ibta ay darawallada qaar leeyihiin ayaa arrintan ka mid tahay inta aanay soo bixin shirkadaha filimada sameeya ayaa arrintani ka jiri jirtay waddamada Yurub qaar laakiin waxaa caan ku ah waddooyinka waaweyn ee saxaraha ah ee Sacuudi Carabiya oo ay dhalinyaradu ku sameynayaan xarakaadka noocaana iyagoona gaariga dhinac u socodsiinaya oo mid laga yaabo inuu ku soo fariisto daaqadda kadibna uu iska qaadayo sawirro ama uu vlogba duubayo sidoo kale xarakaadka la yaab kale ee sameeyaan waxaa ka mid ah in gaariga oo socda laba lugoodna ku socda laga bedelo taayir ka mid ah taayiradiisa dhinaca kale intaasina gaarigu laba lug ayuu ku socdaa kadibna taayirka inta la bedelo baa taayir cusub ama shaag cusub lagu xirayaa gaariga kadibna waa la dejinayaa oo xaalku waaba caadi laakiin arrintan waxay u baahan tahay taxadar fara badan iyo weliba khibrad dheeri ah si looga digtoonaado halis kastoo imaan karta gaariga xamuulka ah ee la bootinayo caalamka waxaad ku arkaysaa xeelado fara badan oo isticmaalayaan darawallada khibradda badan u leh kaxaynta gawaarida noocyadooda kala duwan ha ahaadaan kuwa tartanka kuwa xamuulka kuwa raaxada loogu talagalay iyo weliba kuwa kale ee wax lagu daabulo ama lagu qaado xamuulka iyo wixii la midaba sidaa daraaddeed caalamka kama dhammaata cajaa'ibtu ninkan lagu magacaabo Greg Jotfar waa nin caan ku ah arrimaha noocaana iyo jaminta iskoorada u yaala darawallada cajiibka ah wuxuu caan ku yahay inuu bootiyo ama meel buur ah ka soo bootiyo ama ka soo tuuro gaariga oo wado oo ah weliba gaari xajmi weyn oo noocyada xamuulka ah arrimahanina in badan ayuu sameeyey qoyskiisana caan ayay ku yihiin arrinta noocaana balala daawo muuqaalkan soo socda iyo weliba xarakaadka uu sameynayo
xarakaadka la yaabka leh ee halista u muuqda. darawallada qaar waxay caan ku yihiin inay sameeyaan xarakaadkii lagu samayn jiray filimada ee beenta ahaa, inta badanna ah kuwa lagu sameeyey aaladda loo yaqaano VFX ama la adeegsado waxyaabaha xeeladda u badan sida After Effects iyo barnaamijyo kale oo wax badan oo beena ayaa lagu sameeyaa, sida qof duulaya oo kale, xayawaano aan jirin oo la dhisayn gareeyey kadibna afka qiiq ama dab ka sii daynaya, ama qof awood gaara leh oo keligii beebi kara ama haadi kara, ama qof magaalo dhan keligii la dagaalamaya, ama qof xayawaano waaweyn la dagaalamaya. waxaasoo dhan waa waxyaabaha feegga ah ee bulshooyinka lagu soo jiito, maadaama naftu ay iska jeceshahay inay madadaalato wakhtigana ay ku dhumiso ogaanshaha shay cusub. sida daraaddeed darawallada qaar ayaa waxay awood u leeyihiin inay sameeyaan xarakaadka noocaa iyo dhaqdhaqaaqyada noocaasi ah ee waalida lagu tilmaami karo, sida kaaga muuqataba shaashadda oo uu samaynayo darawalkan marba gaariga meel u wareejinaya, mararka qaarna halis isgelinaya oo tareen waddada socda isku dayaya inuu dhaafo intaanu tareenka waddada goynin, lagana yaabee in tareenku ku yimaado oo markaana noloshiisa uu sidaa ku halaago. ku tartamidda ama ku kaxaynta gawaarida biyaha dushooda. inta badan ee aad daawanaysa tartamada waxaad arki jirtay gawaari lagu tartamayo oo la isbursanayo kadibna la isku dayayo in lagu kala hormaro meesha markaa loo asteeyey guushu in ay taalo, ama ah halkaa qofkii ku hormaraya guusha qaadaya. laakiin ka war haddii la iskala tegay meelihii gawaanka ahaa amaan biyaha lahayn ama yaabiska ahaa, waxaa la isla tegayaa markan qaybtii biyaha. dhulkii qalalnaa la iskala tag, tartanku markaa kii hore waa ka xiiso badan yahay, laakiinse waa ka halis badan yahay, sababtoo ah mararka qaar waxaa lagu tartamayaa ama gaariyaasha lagu dulwadayaa meel biyuhu ay badan yihiin, gaarigana ay laqi karaan haddii uu ku dhex joogsado. yacni waxaan ula jeedaa harooyinka biyaha badan ee mararka qaar lagu tartamo, laakiin tartamada noocaana dadka galaa waa ay xadidan yihiin. Grenson wuxuu caan ku yahay arrimahan, waana nin oday ah, mama isdhehaysa ninkan ayaa oday ah, maadaama aad la yaabayso xarakaadka waalida ah ee uu samaynaya ee ah sida uu gaariga ugu dul socodsiinayo biyaha, isagoo weliba diiwaangeliyey ama laga diiwaangeliyey rikooro la yaab leh oo ku aadan arrintan ah ku kaxaynta gawaarida ee biyaha dushooda. kuwadidda gawaarida laba lugood weliba meel ciriiri ah oo ku filan labada lugood ee dhinaca kale ee gaariga. arrintan waa arrin la yaab leh, waa arrin halis huwan, waa arrin aanu samayn karin dad badan oo ka mida darawallada maanta caalamka jira, laakiin 3 ka mid ah dhallinyarada waddanka Shiinaha ayaa waxay isku dayeen arrintaasi, waxayna sheegeen inay muujin doonaan ama ay soo bandhigi doonaan xarakaad la yaab leh oo waali ah, iyagoona sheegay inay geli doonaan buugga lagu kaydiyo cajaa'ibta iyo rikoorada la yaab kale ee Guinness. 3dooduba isku day cajiiba ayay sameeyeen, iyadoona mid uu gaariga sidii u waday labada lugoodna ugu wada meeshii ciriiriga ahayd oo markii dambe gudoomay, dhowr marna uu la rogmaday. ugu dambeyn waxaa guulaystay mid ka mid a dhallinyaradii 3da ahayd, iyadoona dadkii oo dhan ay u hambaliyeeyeen maadaama uu sameeyey dhacdo la yaab leh oo aynu ku dhiiri karin in badan oo ka mid ah darawallada ugu khibradda badan ee caalamka. ugu dambayna ila daawo muuqaalkan la yaab kale, waxaad arki jirtay shayga 4 lugood leh ee dhalinyarada qaar ama dadka waaweynba ay ku dul cayaaraan barafka dushiisa, sidii loo kaxayn jiray ama loo leexleexin jiray ayuu darawalkan gaariga u leexleexinayaa, isagoona ka dhex saari kara meelo ciriiri ah, aadna u ciriiri ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddii muuqaalku cajabiya like ha ka hilmaamin, sidoo kalena sheer garee oo asxaabtada la wadaag ugu yaraan 1 qof. الله إذن أمان سيدا ميل كستو جوجتان في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.